Spotify, Shopify, Google Drive shirkadahan waxay isticmaalaan business model loo yaqaano freemium business model. Videogii kan kaga horeeyay waxa ka soo hadalnay business modelada inay kala duwan yihiin. Shirkado badan oo SaaS softwareska waxay isticmaalaan modelka loo yaqaano freemium business model. Freemium business model maxaa la dhahaa? faa'iidooyinka uu leeyahay maxay tahay? Freemium business model waxa la dhahaa waa free plus premium. Tusaale hadda Canva markaa isticmaalaysid sawirada qaar waxaa ku isticmaali kartaa free laakiin qaarna wuxuu ku dhahaa lacag bixi. Ka soo qaad Google Drive oo kale. Google Drive waxa uu siinayaa 5 GB oo free ah haddii fiidiyoyo badan aad ku install gareysid wuxuu ku dhahayaa ka buuxsamee drive-ka si aad u kordhisatid iibso ama haddii kale telefoonka iPhone-ka hadaa isticmaashid storage markuu ka buuxsamo wuxuu ku dhahaa storage iibso. Marka businessyada nidaamkaas u shaqeeya waxaa loo yaqaanaa freemium business model. sababta freega loogu dhigaa waxay tahay waxay rabaan dad badan inay application-ka imaadaan markay imaadaan application-ka ay la qabsadaan ama system-ka addicted ay la noqdaan in yani qofka wixiisa muhiimka si uusan ugu tagin inuu lacag bixiyo. faa'iidooyinka uu leeyahay number 1 waxaa waaye customer badan markaa heshid oo free ah waxaa badanayo dadka maxaa la dhahaa real customer-ka noqonayo oo lacag bixinayo oo paid maxaa la dhahaa customer noqonayo. haddaba haddii aad u baahan tahay marka freemium business model all kambaniyada isticmaalo iyo qaabka ay u isticmaalaan in faa'iidadiisa inaa kugu soo diro qaybta message-ka keliya soo qor freemium business model qaybta hoose. sidoo kale koorsooyinkeenii kala duwanaa ee online iyo classka isdiiwaangelintooda way furan tahay ka faa'iidayso.